الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله. خطبتي هوري وحان كغسو هذا الله وحان كو شيغني قاعدة هي أساس مهمة بني آدم كواح كستو إلهي سيي إنو أقيب سما لبا قيبود ميد بركيسن إيو ميد بركة لآن وحينكم مثالنا انتصالة سوقادا أن خطبة أني هوري حولها بني آدم كإيا هنتيدا إلهي سيي تبارك وتعالى وحينك قهد الله سيداب الروح حوليه سأقرق كراه بإذن الله حول بركيسن مثال لبعض أو قاعدة كوسا ليسن إنه خطبة أننا كجاه الله ينايا عمرك بني آدم الله تبارك وتعالى ابن آدم كمدد النولان عمرك يسوو قري انتو سندلني بالله حريقي السجانة قيبيي مدبا يران كل منايا مدبا أوركبا كسوبحيني مدبا إلمني ما كتجيه مدبا دلنيراني ما كتجيه مدبا يسوي قد مدو الله قاضية مدبا دق نما يدق جارية مدبا عن تتبيه الله تبارك وتعالى بعمرك ساء قيبيي عمرك إلهي إنسيي تبارك وتعالى دتك قاركودنا ولو بركيي دتك قاركودنا عمري وحال سيي شؤمي إيا باس إيا بلايكوا وأن خير لهين سؤال شو وحي تاي مرك سيدي بعد عمري قاقا أقدي كرتا عمري بركيسان بإذن الله إلهي با وحوال ببحية مشيئدي سينا كتي مادا الدومدنا وحا الله فرأي إنا يصدي مادان وحلقو سين لها وحا كفرا مركيناد أسبابتي الرادي ساد عمري قاقا كقدق لهيد عمري بركيسان قدو برور أيينو تلمامينا وأرنتا كسابسا أسبابت صوبت كوبات تلابد كوبات عمرك iyo waqtiga ilaahay ku siiyay nooshahay waxaad ku camirtaa ilaahay taacadiisa cimrigu waa maalmo waa saacado waa sakana iyo ilbiriqs waa sanado waa bilo cimrigu waa khasnad wax la gashado way waa store wax la gashado nin walbana wuxuu gashaduu kala baxaa ninkii khayr gashadana khayr buu ka goosan oo kala bixi ninkii shar gashadayna shu'mi iyo balaayo kala baxaya cimrigaaga waxaad galisaa ilaahay taacadiisa sidaas uu ku barakoobayaaye hadduu gaaban yahay iyo hadduu dheer yahayba waxaad ka ilaalisaa ilaahay macsiyadiisa hadday kaa dhacdana ka tawbadkeen oo ka soo noqo maxaa yeelay macsiyada iyo dambigu waa shu'miga iyo aafada cumriga iyo waqtiga lagu siiyay nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi macaanida kamida isagoo tilmaamaya fi sahih al-bukhari wuxuu ku leeyahay rasuulku salawaatu rabbi wa salaamu alayhi toddoba ruux maalinta qiyaamada carshiga ilaahay bay harsan doonaan maalinkaasoo har kale jirin ka alla mooyee todobadaasi wuxuu nabigu ugu horeysiyay sallallahu alayhi wasallam imaamun caadil nin madax oo raciyada iyo dadka uu u taliyo cadaalad u sameeyay iyo garsoor oo diin ilaahay ku maamuloon u kala eexanin isaga u horeeyay laana nafcigiisa wax walba ka badan nabigu wuxuu ku labeeyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi nin dhalinyaro oo ku barbaaray ilaahay taacadiisa iyo cibaadada alle ku barbaaray dhalinyaro ma dhalinyaraynin ma leexleexanin ma ciyaal suuqaynin balwad iyo qashin ma gelin dhalinyaranimadiisiiba wuxuu ku barbaaray ilaahay taacadiisa lagama wado intuu dhalinyarada ahaa buu hagaagsanaa kadibna marxaladihii ka dambeeyay wuu leexday lagama wadee marxaladaasi waxa si gooniyo loogu tilmaamaya waa marxalada ugu khatarsan bini aadamka noloshiisa waa marxalada la rumo
ومرحلة بني آدم كشهوة كحوك بدن تهي شهواتك أنت بدن أي جيدان شبهاتكنا كأتكادان ومرحلة عقلي علمي أوصل لما يسترنين ومرحلة بني آدم كتجربة ويا أرق أوصل لهين مرحلة خطرتها هدوب إلهي عبادتي ستبارك وتعالى كبر باري مراحشة كدن بيساي ومن باب أولى وكسي حق جيران معنى هذا وحويان والروح يرانتي سي إلى أنت تي إلهي وجا إيماني سي عبادة إلهي كل حجري واحد كائسجأ عمري سوح النقد مبارك وحي وحو دحل سيي إنه النقد أضمده كوا وجود درجة السرية إنه كم النقد وكذلك روحي عمري ساء وجفا إذا استورن متبركة يسمون نقنيه قضب كلمات عمريغاغا سي او نقدو ميد بركيسن wax faa'iido la gali waxan faa'iido ilaah lahayna ka ilaali cimrigu waa wax ilaahay ku siiyo waxyaalaha ugu qaalisan buu ka mid yahay waa inaad ka ilaaliso waxan faa'iido iyo macno lahayn oo waxba ka soo galaynin nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu leeyahay ruuxa islaamnimo wanaagiisa waxa kamida oo ka tago wixii aan faa'iido lahayn oo loo qastin oo shariicadu u qastin waxaan faa'iido lahayn oo laqwi ah oo lahwi ah oo ciyaaro macna la'aan oo waqtigaaga dilaya waxna aan ka soo galaynin waqtigu inta waa ka qiimo badan yahay isaga bixinin maxaa yeelay waqtiga halka ka galay waa waqti baraka la'aan ah xisaabtiisuna maalinta qiyaamada kugu soo noqon dhibaato badanna ka soo gaari doonto waqti marka meelaha gala ma haysatid waqtigaagu waa saddex waqti waad cibaadaysanaysaa oo aakhiradaadii baad dhisanaysaa oo hagaajisanaysaa cibaadadii iyo taacadii iyo khayrkii baad ku mashquulsan tahay quraan baad akhrinaysaa masaajidkaad fadhida salaad baad tukanaysaa dacwaad faafinaysaa cilmi baad baranaysaa waqti halkaas uu galay waqtiga qaybsiisa labaad xalaal baad raadinaysaa kasab xalaal ah waad ganacsanaysaa waad beeranaysaa waad falanaysaa waad xamaalanaysaa waxaad u ordaysaa wixii xalaal ah ilaahay ku baneeyay baad raadsanaysaa waqtiga saddexaad ee soo haray waad nasanaysaa waad jiiftaa saddexda wax ka soo haray male waqti meelaha la fadhiisto oo la taagnaado oo fadhi ku dirirka lagu lumiyo oo sheeka bareelay lagu mashquulay ruuxa muslimka ma haysto wax ka qaalisan oo ka qiimo badan baa u yaala haddaad rabto waqtigaagu inuu barakoobo waqtigaaga xisaabi saacadaha meeshay ka galayaanna u fiirso waxaan macno lahayna waqtiyuusan kaaga bixin mid barakaysan buu noqonaya tilabada saddexaadii waxay tahay ila doonaya inaynu qaadano si ilaahay cimrigeena u barakeeyo waa inaan ilaahay khalqigiisa ihsaan iyo samafal u sameeyno waa inaad noqoto cunsur iyo xubin muhim ah mujtamaca uu ku dhexnool yahay iyo khalqigu la nool yahayna wax tara xoogiisa ku anfaca xoolihiisa ku anfaca aqligiisa ku anfaca cilmigiisa ku anfaca wax tar noqo mujtamaca culaysa ku noqon cunsur wax tar ah oo wax faa'iideeyo noqo taasi waxay noqonaysaa cimrigaagu inuu barakoobo khaasatan nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu yiri qadarka alla tabaaraka wa taala waxa celiya ducada cimrigana waxa siyaadiya ihsaanka iyo samafalka buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ahsin ila an-nas khalqiga ilaahi ihsaan iyo wanaag u samee ka tabarta daran xoogaaga ku anfac miskiinka wax si hadaad jeeb dhaanto naxariiso ilaahi baa ku naxariisane si waa lagu siinayaaye ilaahi tabaaraka wa taala khalqigiisa ihsaan u sameeyana ihsaan baa lagu sameeyay cimrigaaga waa la barakaynaya gaar ahaan ehelkaaga qaabadaada xigtadaada raximkaaga nabigeena waxa ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi inuu yiri ruuxi ay farax gelinayso jecel in cimriga loo fidiyo rizqana loo waasiciyo sixun inuu u dhintana laga ilaaliyo saddexda waynu jecelahay saddexda ruuxi rabo oo jecel nabigu wuxuu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi allah ka baqo oo ha iska ilaaliyo
qaraabadiisa iyo raximkiisana ha xidhiidhiyo raximkaaga xidhiidhi qaraabada xidhiidhi waxaad ku dhaanto sii soo dhawee ha goynin keligii cunaha noqonin ehelkaagii iyo qaraabadaada xidhiidhi ilaahay bay tabaaraka wa tacaala intay is hortaagtay baa waxay tiri rabbi yow magan waxaan kaaga ahay in lay gooyo i magan geli rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala raximkii qaraabadiyey soo raalli kuma tihid ciddii ku goysa inaan gooyo ciddii ku xidhiidhisana inaan xidhiidhiyo haabay tidhi ballan ilaahay agtiisa yaallo wayo ruuxii qaraabadiisa gooyo inuu ilaahay gooyo waxba kuuma yaallo haddaad rabto cimrigaaga in ilaahay kuu barakeeyo lagu fidiyo qaraabada xidhiidhi khalqigana ixsaan iyo wanaag u sameeya qodobka afraadi wax weeyaan iyo sababta afraad ee ilaahay cimrigeenna ku barakaynayo waxa weeyaan in aad khalqiga uga tagto wax dhimashadaada kadib la intifaacsado adigana qabriga kuugu socda rag baa 10 sano ka dhintay dad baa 100 sano ka hor dhintay maantana raadkii ay ka tageen ummaddu intifaacsanaysaa diintan ina soo gaadhay rag baa sabab u ahaa oo malaayiintan muslimka ah waxa ay samaynayaan midhaheeda goosanaya intay samaynayaan in la eg loo qorayaa laana ayaga dadkan diinta soo gaarsiyo sabab u ahaa qaar baa cilmi la intifaacsada ka tagayo kutub ka tagay ilaa maanta la intifaacsanayo qaar baa arda soo saaray ummadda anfacaysa qaar baa ceelal qoday oo masaajid dhisay adeer wax la intifaacsada ka tag ummaduna intifaacsato adigana qabriga kuugu socda ninkii 60 sano noolaa ama 50 sano noolaa oo manaafacaad ummadan uga tagay oo 100 sano la intifaacsanayaay cimrigiisa wuxuu ku kordhiyay 100 sano ku kordhiyay waa ajaa'ib waay meeshaas lagu kala tagay adoomadu isku dhaafeen sidaas daraadeed ku dadaal noloshaada in wax manaafacaad leh aad ka tagto nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu leeyahay aadamuhu markuu dhinto amalkiisu waa go'aya ilaa saddex mooyee ilma ku duceeyo saalixaad ka tagtay cilmi baad ummadda bartay oo la intifaacsanayo ka dambeeyay sadaqa jaariye abaad yaad ka tagtay oo ummadii intifaacsanaysa masjid baad dhistay awqaaf baad ka tagtay ceel baad qoday wahaakada kaasi waa soconaya ruuxi isagoo nool oo kale uu ka dhigayo amalkii ugu soconaya sidaas daraadeed cimri barakaysan way ruuxu wax weyn ummadan uga tagay oo ay meesha ugu socoto cimrigiisiyo wax badan ay ku darmadeen waay qodobka shanaad ee ugu dambeeyay wuxuu yahay walaalayaal Allah tabaaraka wa ta'ala cimrigaaga aakhirkiisa goortu aakhir yahayna garan maysid cimriga aakhirkiisa lama yiraahdo markaad duqowdo laana malakul mawtka iyo geeridu dhalinyaro iyo duqay ma kala taqaan mid yaro xalay hooyadii ka soo dhacay buu dafiyo la tagayaa mid dhalinyaro xilligu ugu xoog badnaa nolosha jooga ayuu la tagayaa taajirkii ugu xoolaha badnaa buu qaadanayaa madaxweynihii kursiga ugu sarreeyay ku fadhiyay buu la tagayaa geeridani wax lagu gartiya waqti male cimrigaagu mar walba waxa dhici karta inuu aakhirkii joogo sidaas daraadeed dadaal oo isku day in khaatumadaadu noqoto khaatumo wanaagsan nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa ka sugan inuu yiri Allah tabaaraka wa ta'ala adoonkiisa haduu khayr la rabo markuu wanaag la doonayo uu shaqaalaystaa Allah tabaaraka wa ta'ala markaas waxa saxaabadii oo rasuulka Ilaahay seebu u shaqaalaystaa maxaad ka wadaa nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi dhimashadiisa ka hor ayuu Allah waafajiyaa amal saalix ah Ilaahay wuxuu ku ilhaamiyaa inuu cilmiga barashadiisa u jeesado isagoo qalin qoyan u dhimanaya Allah wuxuu ku ilhaamiyaa inuu salaadaha iyo dhikriga quraanka akhriskiis asagoo ku jiro dhimanaya Allah wuxuu ku ilhaamiyaa inuu dacwada iyo diinta faafinteeda shaqo ka dhigto asagoo dacwada iyo diintii faafinaya tiisi u iimaanaysa Allah tabaaraka wa ta'ala cimrigiisu markuu gabagaba yahay buu wuxuu waafajiyaa amal saalix ah
markaasaa cimrigiisii saa ilaahay ku barakeeyayo khaatumo wanaagsan buu ku dilaa arrintuna waa khaatumada sida nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu calayh sidaas daraaddeed walaalayaal aynu qaadanno asbaabta ka dhigaysa cumrigeenna mid barakaysan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala maalmaha yar eenu nool lahay oo iskaba yar oo ayna garanaynin intay la eg yihiin allah tabaaraka wa tacaala maalinta qiyaamada cumriga uu ku siiyey intuu dooni ha dhannaadee xujuu kugu yahay waxa uu ku leeyahay addoonkaygiiyow soo muddadaa kuma noolaynin maxaad samaysay waxaad cimrigaaga ku qaadatayna waa lagu weydiin doonaa waa can cumrihi fiima afnaah rabbiga adoo hortaagan keligaa ah wehel aan lahayn ayaa waxaa lagu weydiinayaa 4 arrimood meeshaana ka dhaqaaqi maysid ilaah lagu weydiiyo 4 maxaa ka mid ah cimrigaagii xageed ku dhamaysay maxaad qabanaysaa maxaad ka shaqaynaysaa maxaad haysay waa inaad uga jawaabto second daqiiqad saacad xageed joogtay maalintaas secondka maxaad qabanaysaa daqiiqada maxaad qabanaysaa saacada maxaad qabanaysaa oo yaa jawaab u haya yaa cid ka baasi karto ka barmoosi karto ma jirto illa cid ilaahay badbaadiyo mooyo tabaaraka wa tacaala u diyaar garow xaaladda iyada ah cimrigaagana ka faa'iideeyo ka faa'iideyso nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamu calayhi waxaa ka sugan la siyama ruuxu markuu cimrigiisu intuu dheeraado waqti la siiyo jaanis la siiyo 60 jir buu gaadhay 70 buu gaadhay 80 buu gaadhay oo maxaa ku laaban cimriga ummadani gaalibkeediya inteeda badan sidoo nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamu calayhi ma bayna 60 wa 70 in yarba 70 ka dhaafaysa badankeedna waxay ku dhamaanaysaa inta 60 iyo 70 u dhaxaysa waxa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu calayhi inuu yiri alle waa u cudur daarayo cudur daar waa u dhameystiray wuxuu ku marmarsoodana maalinta qiyaamada heli maayo ruux ilaahay uu dib dhigay oo cimriga u dib dhigay ilaa uu gaarsiiyay 60 sano haddii ilaahay ku soo gaarsiiyay war maxaa ku laaban oday baa tahay maxaad u ciyaal suuqayni oday baa tahay oo da' baa tahay adduunkana daba ordaysa muxuu yahay oday baa tahay kursiga iyo jagadana dadka ku laynaysa muxuu yahay oday baa tahay maxay tahay meelaha taagtaagan tahay iyo muxuu ahay fadhi ku dirirkaad fadhido ya allah tabaaraka wa tacaala cudurdaar waa ku dhameystiray wax ku laabanna male sidaas daraadeed ayaa maalinta qiyaamada markii naarta la geliyo kuwii naarta loogu talagalay qaylay bilaabayna cala waxay leeyihiin rabbana akhrijna minha na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal rabbiyow naarta naga saaro adduunkii dib noogu celi wixii aan samayn jirnay wax ka gadisan baanu soo samaynaynaa waxbaan hagaajinaynaa الله تبارك وتعالى جوابتي سوحوي أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير عمري إذن كفلا أتكوانا قادتان سو إذن مسيني علم حيث ديب نوع علم حيث وحبان سوها قاتينينا محيث عمري إذن كفلا وانا إذن كفلا سو إذن مسين انت كليه ماها وحيد إذن دكتو حقائقنا إذن كورنتنا سو إذن ما صادرنا إذن ما إيمانين ما حيتها إن علم وربا يا مركز سيدا استرادد عمري قاقو وحجة أو حيالها ما ننت قيامتك وقبصن دونواي واحد ربطا عمري قاقو كفائده نبينا وحل ويدي صلوات ربي والسلام عليه نر بادية ويمت مركز وحو إلى رسولك الله دتك يا أخير بدن وحويري النبي صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله روح عمري سنة ديرادي عملكي سنة وناك سنادي أضمد كاسا أخير بدن كاسا أفضل بدن نبا هذا كور وحلق النبي صلى الله عليه وسلم للدليل وشهادة قاتي إلهي درتي بالله الدليل نين كلا تويس ولا لا هاي مس قرابة هاي مصاحب هايين باكدن بيو مدمر كون نولا أيو geeriyooday si caadi isaga dhinto labadii nin bay saxaabadu ka hadleen koodee fadli badan nabiga la isula tagay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markaasuu nabigu wuxuu yiri kii waqti hore la dilay shahaado qaatay kan kale muddadii dambe uu sii joogay soo ma tukanayn ha soo ma soomaynin ha de ma kari kara way marka
ما قاري كرا لأن عمري كان دمبه وخير كسمية كاسي واتجي سيدا استناد روح عمري جيسو ديرادي عمل كيسونا في عنادي كاسادتك أوقف الدبضان يا أوقف شربضان بويدي النبي الله ودتك وحا أوقف شربضان بروح عمري جيسو ديرادي عمل كيسونا حمادي صوت وحوي عمري كان دير عمل كحون للصعداي نار إي عذاب باتسيات سنيسة الله قرآن كريم كواكا إنه أوقف شاقي قال هذا الله أكادينيو الله برواقينيو عمري قدر لسينيو ييسن لينين سينتاسي إني خير إيا وناك تهي محل الله سينيا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إني دنبي سياد سدان بالربا عذابكنا مركا أكره ريح روحي عمري جيسو ديرادي عمل كيسونا حمادي روح أقول شربنا ويا أضومد إلهي تبارك وتعالى سيداس درادة عمري جينا نديب مراجعينه ونديب أصحنه وعمري جينا أينو بركينه وخسنده خيرات أن كبو حين ما ننتقي ماذا أن أبحثنه صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك